الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ما أنت وحان وهرن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى، ثم وحان أمهد علينا مامورك جامعة جولدن وأنكو أقان بدال دينية هي ضد ما تحقق جبينيس جامعة جولدن soo gunaanadaya safarkoodii dheeraay waxbarashada waan isleeyahay dadaal dheeraad ku muujiyeen in maanta meeshan ay soo gaaraan. dhanka kale waxaan rabaa in ardada aan u sheego waxbarashadu ma dhamaato qofka dhamaado, marka waxbarashadu waxay ku xiran tahay qofka in yani hadba dadaalkiisa iyo fikirkiisa meesha uu geeyo buu noqdaa. maanta macnaheedu ma aha shahaado hadaa qalatid in waxbarashada aad soo gunaanatay. waxbarashada waxa loo qaybiyaa labo: waxbarasho soo jireena iyo waxbarasho yagleelid oo unkid ah. marka knowledge creation-ka waa kan ugu muhiimsan maanta annaga aan u baahannahay, ama loo yaqaano research. qofka inuu sameeyo cilmi baaris, inuu qofku wax soo kordhiyo. macallinka wuxuu kuu sheegay haddaad sii sheegto waxaan isleeyahay waxaa ka qiimo badan inaad adiga wax soo kordhiso hal abuur aad la timaado oo cilmi baaris aad samayso. taasaa waxaan isleeyahay waxaa soo saartaa qofkii soo saaraysa, waayo waxaan hore u jirin haddii aad cilmi baaris ku soo saartid adduunka wax ku soo kordhisay. laakiin wax qof soo kordhiyey cilmi soo saaray haddii aad akhriso oo imtixaan aad u gasho waxaan isleeyahay wax badan ma soo kordhin. laakiin haddaa cilmi baaris samaysid waxaan filayaa waxay noqonaysaa inaad adduunka wax ku soo kordhisid, dadkana ay wax kaa faa'iidaan. marka jaamacaddan Golden ee hadda ka qalin jebinaysaan dabcan anna qiimo weyn ay agteeda ka leedahay, waayo waxaan ku jiraa dadkii idil dhaxaadka u ahaa jaamacadda intaanan u soo wareegin halkan. marka waa jaamacad lagu kalsoon yahay, ana ogahay qiimaheeda iyo qaayaheeda iyo dadka jooga maamulka majaraa u haya fikirkooda iyo hal abuurkooda meesha uu gaarsiisan yahay. marka waxaan filayaa inaad ka nasiib badan tihiin dadka kale ee maanta ka qalin jebinaya jaamacadaha kale. midda kale agaasime mukhtaar waxaan u malaynayaa inuu idiin sheegay in dowladda maanta jirta ay ka duwan tahay dowladihii hore u jiray. waxay uga duwan tahay waxay jaanis siisaa dadka firfircoon ee dhallinyarada ah. marka aan uga mahad celino madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ee fursadda dadka ama dhalinyarada u siiyey inay soo saaraan yani hal abuurkooda hogaamineed, inay soo saaraan baraatikeeyaan aqoontooda, inay keenaan fikir lagu horumarin karo ama lagu shaqaysiin karo, yani lagu shaqeeyo dalkan iyo dadkan la daaladhacaya 30 sano ee dhibaatada hayeen. marka fursaddaas maanta waa bilow, dhammaad ma aha. waxaan rajaynayaa inaad idinkana ka faa'iidaysan doontaan, laakiin waxay ku xiran tahay in aad wax la timaadaan horumarin, inaad la timaadaan fikir, inaad la timaadaan hal abuur. tusaale ahaan wasaaradda maanta aniga aan gacanta ku hayo ee hormuudka u ahay yani waxay ku jirtaa wasaaradaha wax soo saarka dalka. maanta coronavirus ee adduunka ka jiro waxaa laga yaabaa 95% cuntada dalka laga isticmaalo anaga dibadaha ka kaysanaa soo ma. marka waxa ugu badnaato Asia inaan kala nimaadno. Asia marka kala nimaadno yani maanta Asia waxa ka jiro coronavirus, dadka maanta guriga ku xariisan yihiin. waxa laga yaabaa magaalooyinkii anaga wax nooga imaan jireen maanta in yani challenge transportation inuu ka jiro, isu gudbitaanka inay caqabad ka jirto. marka cuntadii anaga meesha nooga imaan jireen waxa laga yaabaa in qiimo kor ku yimaado, gaab ku yimaado, anagana yani ma lihin keed cunteed. marka wasaaradda beeraha oo federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shalay marka aan isu nimid yani waxaan go'aansanay in dalkan aan u sameyno keed cunteed si looga baaraan dogo haddii ay timaado yani gaab cunto oo waddankan ku yimaado, waayo waddankeenu anaga dibadda wax ka soo keensanaa badanaa 95%. marka waxaan u baahannahay dhanka kale inaan u rogno
inaan soo celino EDCyo inaan maqli jirteen oo maleenaya oo cuntada lagu keedin jiray dalkan marka intaas oo dhan dadka ila shaqeeyo waa dhalinyaro marka maanta dalka idin baahan dadka idin baahan يعني waxaan u baahanahay fikirkiina laakiin uma baahnin qof aan socon karin mise socona qofkii socon kara la socodsiiyaa Soomaa laakiin qofkaan socon karin ma socon karaba isaga u baahan in la socodsiiyo waxaan la jeedaa qofkii fikir iyo hal abuur iyo dadaal la yimaado fursad buu helayaa laakiin qofka kale ee jiifayga ah ee iska seexda waxba soo kordhinaynin cid gacanta ku qabanaysa ma jirto adiga hadaadan u baahan يعني إن أسوأ بدكتو فكر كاجا مركب معناته فرصة في عنا جبتو خير وحنكون بشارنا يا إن يعني ضل كان ونقضي أما هاي مدهر أصعد مركب يعني لقاها الجديد بابور في السعودية أو الرعد